digaya askarta la soo kireystay summa wallaahi madaxa meeraxda noogu duumata cidna kama cabsanayno mididayna ku caana maalayna hub ma haysano maxaan gadayna qoortiin kaga jirayna wallaahi qoryahan waa leen ka qaadanahay shacabka ku nool xaafadda Warlaliska ayaa si weyn uga horyimid burburinta lagu hayo dhulka iyo guryaha ay degan yihiin iyagoo sheegay inaysan haysan meel kale ay u barakacaan dadka deegaanka waxay ku adkaysanayaan inay difaacan doonaan guryahooda iyo hantidooda iyagoo sheegay inaysan aqbali doonin in la burburiyo xaaladda xaafadda Warlaliska ayaa xilligan ah mid cakiran iyadoo laga cabsi qabo inay ku dagaalamaan ciidamada dawladda iyo kuwa diidan burburinta dhulka dadka shacabka ay degan yihiin habeennimadii xalay ayay ahayd markii gudaha xaafadaasi ku wada dagaalameen ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ah oo gabi ahaanba diidanaa in la barakiciyo dadka shacabka ee ku nool xaafadda Warlaliska wixii xog ee ka soo kordha xaaladda gudaha degmada Daynile gaar ahaan xaafadda Warlaliska waxaad kala socon doontaan Kalsan TV adeega maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 gees